waxaa looga hadlay ajadayaashii had iyo jeer taagnaan jiray ee ugu horeeyay dabcan warbixinta amniga dalka sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa waxaa kale oo looga hadlay si xoojinta hawlaha xukuumaddu wado maadaama shalayto go'aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida laga noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in hawlaha dawladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardar geliyo goluhu wuxuu ugu horeynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo hawlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa aad iyo aad loo ammaanay loona rajeeyay khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hogaamineed ee golahan shalayto kalsoonida lagala noqday uu ku hogaaminayay intaas kadib golahu sidoo kale waxay ka hadleen dabcan u diyaar galowga marxadda kala guurka iyo inaan shaqooyinkii dawladdu aanay dib u noqonin inta xukuumad kale oo xilka la wareegaysa ay imaanayso in si adag loogu shaqeeyo qorshayaashii iyo hawlihii socday aanay halkoodii dib uga dhicinin in dhowaan maadaama uu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 iyo dadka uu soo ridanayo saameynta uu Soomaaliya hadda ku leeyahay in si dhaqaalaha dalku uu dib ugu kaco dib loo furo dhowaan garoomadii diyaaradaha iyo iskuuladii iyo jaamacadihii iyo dalka meel kasta oo xidhan in dib loo furo iyadoo taxadirka laga qabo in wave-ka labaad ama wareegga labaad ee coronavirus-ka wadamada adduunka wadamo kamida uu ku dhacay taxadir xoog leh laga qabo mar kasta ay imaan karto in ama wadan ama meel gaar ah